deegaanka lagu magacaabo Waqdariya waxa uu u dhaxeeyaa degmooyinka Maydh iyo Laasqoray ee gobolka Sanaag waana deegaan u jira ilaa iyo 245 kiiloomitir magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag. Toddobaadkii hore dhibaato ugu dhaxmartay dhalinyaro iyo dad la sheegay inay ka ganacsanayaan ama urursanayeen dahab lagu arkay halkaasi, laakiin waxaa la sheegay markaa hore in dhibaatadu ay qabowday. Mar kale ayaa shalay dhibaatadu la sheegay inay mar kale soo cusboonaatay. Deegaanku waa mid buuralaya waana adag tahay in lagu helo khadka telefoonka dadka deegaankaasi jooga ee dhibaatadu ay u dhaxayso ama dadka kale ee ka agdhow. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo aan la xidhiidhay ayaa khadka telefoonka igu warramay, waxaana ugu horreyn weydiiyey magaciisa. Magacayga Xasan Cabdi Carraan la yiraahdaa. Horta sidee wax u dhaceen? Sida wax u dhaceen nasiib daro 3 sannadood ka hor iyo nasiib wanaag isku jira baana helay. 3 sannadood ka hor baa meel isiido la yiraahdo daab lagu arkay. Shaqo Soomaaliyeed baa isugu yimid كمان وعلي روحنا الجوت ونور روحي يعني نسيب حاجة دولية يلا نتكي عليه السيرة على الكفر عليه يا بعيد وبديه وكده الناس فوق كده ضعف وتعرضوا ولا كل يوم قالوا أبقى كل سنة والله وحي إلى ما يجربوا الكسوكا والله كاي لكن قال لي بقول هالكاتي وهو بدل الشوكا وهو reer ka maqan ma jiro horta bakiyeena waa joogtaa halka markaa baa ka dhacday qoladii deegaanka ay lagu soo duulay moodeen duulidaad ma ay wuxuu dacdoon buu ahaa dabada taasiirad baa dhacday nin muusas ku dhacday xabada saddex waa ku dhaawacantay haye halka markii ay suurtay shalay kala baadana wax dhaceen baa la yiri halkaana waxa la yiri inna waa ku dhintay gaari deera fara waa la kala qabsaday حاجة كلام دلعن بريا سؤال محدد وده باينا كسو قربتهم يسلم بقول بالله سوق يعني واقفين دولنا ما هو ظروف تعين كافي كان ما هي تلدين يا ركين يديك يا هاي هذا ما تبغى جماعة وكنا يعني لكن وعن سوق النوام بريو الدنيا وعيين كده راح تجي عندي سبعة عندي بل الله وش وجهها قال لي هم سكالية إلا ديك النبات شو قبل سه ما حالة دوغال كاسديتا هذا واتجنتاي أنا هو الطرف كيرا هو الله هذا اللي وعن دام لي ما هو سيء إذا فالكي ندابك إلا إذا كردوا الكتاب ما كان كبرنا إذا كانوا فاهمين فرحين يا خاف أروح إلى يلا غير ماشي يلا إذا هو فهمان إن وحيد عيو الله كلا بروريا كل الله يسمع يضاف رب الله يسمع ذهب على الدنيا النسوة أنا يديك ربوري نوح marka waxaad leedahay baaqaagu waxa weeye wax talaabaha qaadina labada dhinac midowna hala u fahmina laba beerood oo isku soo duulay ma waa laba dahab oo isku duulay waa laba dahab oo aan midna qolalahay maamulka gobolka Sanaag ayaa iyaguna arintan aan ilaa imika ka hadal gabagabadiina odayaasha Sanaag ayaa ku tilmaamay dahabkan cusub ee deegaanadaasi lagu arkay nasiib darro iyo nasiib wanaag ishuwan marka la eego khayraadka la arkay iyo dhaqaalaha uu soo kordhin karo ay ku tilmaameen wax lagu farxo iyo dhinaca kale dhibaatada ishorimaadka iyo nafaha ku baxay oo ay ku tilmaameen inay tahay wax laga murugoodo. Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa.